raadiyo xal noo raadi haddaba marka walaalayaal haddaanu mawduuceeni u soo daadegno waxaa weeye qofku hadduu xaaskiisa uu 3 dalaaqo uu ku furo oo hal mar ha noqoto inuu ku furo ha yidhaaho 3 dalaaqo ayaan kugu furay ama xilliyo kala duwan ha ku furo oo mar uu hal dalqo ku furay wuu soo ceshay haddana labadii dalqo kale ku furay xilliyo kala duwan oo sidaa u kala fogfog ha ku furo 3 dalaaqo ama hal mar afkiisa ha ka soo baxdo 3 dalaaqo islaantaas 3 dalqo ayaa ku dhacaya dibna naagta islaanta uma guursan karo ilaa nin kale ay ka soo marto oo nikaax sharci oo saxiixa ay dib uga soo guursato nin kale ninkaas uu la jiifto ninkaas uu soo furo ay ka cidda tirsato markaa ka bacdi ay ninkii hore 3 dalqa ku furay ay dib ugu laaban kartaa masalada horta sida sharciyan saxiixa ah sawaabka ah nabigeennana ka sugnaaday sallallahu wasallam wa baraka calayh iyo saxaabatu rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam ijmaacuna uu ku dhacay waa sidaas haddii laakiin aad tiraahid islaantii 3 dalqaan ku furay wadaada qiil ii raadiyey oo yidhi 3 dalqo waxay ka dhigan tahay hal dalaaqo wadaadkaasi waxaanu ku leenahay yuusan ku khayaanin yuusan been kuu sheegin yuusan aakhiradaada mugdi gelinin yuusan carruurtaada kaa xaaraantinimaynin yuusan gabar muslimad ah oo xaaraam kaa ah gabadh muslimada oo xaaraam kaa ah oo alla uusan kuu xallilin inaad xaaraam kula jiifato oo zina aad ku jiifato yuusan ku gelinin wadaadkaas ee been uusan kuu sheegin waa marka aad doonayso mas'alada sideeda saxda ah waafaqsanna kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sallallahu wasallam wa baraka calayh masalada marka waxaanu sheegi doonaa in akharu alculamaa ayba soo guuriyeen masaladu sidaa inay ijmaac ku tahay oo khilaaf weynba oo la sheegaba uusanba ka jirinba masaladan kana furaynba waanu sheegi doonaa aqwaasha culimmada tusaale ahaan sheekhan bukhaariga sharxay ee xaafid ibnu xajar alcasqalaani markuu mas'aladan ka hadlayay wuxuu ku yidhi sharaxiisa fatxulbaari faaraajixu iiqaacu الhalaaث lilijmaaci aladii incaqada fii cahdi cumar calaa dalik wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar alcasqalaani sida saxda ah ee raajixahi waxay tahay ninku hadduu xaaskiisa 3 dalaaqo ku furo in 3 dalqo ay sidooda u dhacayaan maxaa yeelay asxaabtii oo dhan ayaa sidaa isku waafaqay xilligii khilaafada iyo mas-uuliyadda iyo madaxtinimada uu hayay sayidina cumar ibnu alkhadaab saasuu yidhi xaafid ibnu xajar alcasqalaani oo mas'alada wuxuuba ka cabiray jaanibka ama dhinaca ijmaaca khilaafba inuusan ka furnayn wuxuu intaa ku daray xaafid ibnu xajar alcasqalaani waاljumhuur calى cadami ictibaari man axdatha alikhtilaaf bacda alitifaaq culimmada jumhuurtuna waxay qabaan qofkii mas'alo laysku waafaqay ka bacdi khilaaf ka dhaliya in hadalkiisu wax macnaa uusan yeelanaynin oo qiimo uusan yeelanayn waxaa kaloo sidaas oo kale itifaaqa ama ijmaaca sheegay imaamu nawowi raximahu اllahu tacaala iyo qurdubi iyo ibnu اlcarabi iyo sheekhan la yidhaha ibnu bataal sheekhan ibnu bataal oo sharax weyn ku leh matbuuca kitaabka bukhaariga ah wuxuu ku yidhi itafaqa a'immatu اlfatwa calى lusuumi iiqaaci الhalaaث fii kalimatin waaxida culimmada fatwadoo dhan waxay isku raaceen oo ay isku waafaqeen 3 dalaaqo gabadha haddii hal mar lagu furo in 3 dalaaqo ay ku dhacayaan oo ninkaas ay ajnabi ka tahay xaaraam ay ka tahay dibna aysan u guursan karin ilaa nin kale ay ka soo marto wuxuu sharaxa bukhaariga ku yidhi ibnu bataal wاlkhilaafu fi dalika shuduud wainamaa tacallaqa bihi ahlu اlbidac waman laa yultafatu ilayhi lishuduudih wuxuu yidhi khilaafka mas'alada ee ku jira waa khilaaf aan macno weyn lahaynoo qiimo aan lahayn waxaana khilaaf kaa qabsaday dadka ahlulbidaca ah iyo dad aan hadalkooda aan qiimo lahayn ayaa mas'alada khilaaf ka keenay buu yidhi waxaa kaloo uu yidhi sheekhan la yidhaha imaamu alcayni
oo isaguna bukhaariga sharaxa ku leh sharaxa